كورة ما هدين هوس وضرين وحدن كوكي متين بسم الله الرحمن الرحيم سوديار مني بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan waxaa jooga shirkan jiraayad qabanaya gudida ka soo kabashada abaaraha waxaa la jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda ganacsiga Mustafa Saad baa Maxamuud Warsame Mustafa Saad oo civil society-ga madax ka ah nala socda wasiirkii sheekheeni weynaa diintii awqaafta Sheekh Khaliil wasiirkii waxbarashada Cabdilaahi Dheere Jamaal oo xisbiga wadani ka socda عبد الناصر وحسبي قوعد كصعدة يو سكريو حفيز كما دحوينا كحيينك يو جودي ذا نرهانتي قيبوين كاه لما وزير كلا يا هذين نوي مدان وحول قرن يجون كم مكان واه وزير كي داخلي جي وزير كي مدحتويه ده فهنا ما أنت سووني مرنتي وأنا ندي أبريد قرينه حولوا هالك يشران waxaanu ku isugu keen dambeysay waqti dheer waqtiga dheer gudidan waxay ku hawlaneyd sidii ay wixii lagu ballan qaaday ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shicibkeedu ay ku ballan qaadeen haday qurba yihiin iyo haday maxaan ku dhahdaa gudaha ay joogaan sidii maxaan ku dhahdaa ay soo xiranayso ayaa gudidan ku mashquulsanayd hawshaas oo hawl muddo dheer soconaysay ayay ahayd hawl waxna u dhiman yihiin oo aan weli soo gabagaboobin oo aan soo dhamaan ayay maxaan ku yiraahdaa ayay noqotay waxaanu ka codsanaynaa hawshaas dhamaystirkeeda iyo waxa aanu gacanta ku hayno oo isu soo ururi doona oo ama account ka yimaadaan ama dibadaha ka yimaadaan ama meel walba ka yimaadaan mar dambe ayaanu soo sheegi doonaa laakiin waxaanu doonaynaa inaanu cadayno oo aanu Jamhuuriyadda Soomaaliland ummadeeda aanu u cadayno in hawshii qayb ballaaran ay dhiman tahay dadkii hawshan ku ballan qaaday maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka oo dhanna maxaan ku dhahdaa uu dhageysanayay waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaas waxa la wixii dawladda xagga dawladda ku xidhnaa iyo waxa ama wasaaradaha xagga wasaaradaha ha noqoto ama maxaan ku dhahdaa qaybaheeda hay'adaha kala duwan ha noqoto qaybtaas waa gabagabo waxaanu doonaynaa aanu ka codsanaynaa waxa weeye baaci mushtarkii faraha badnaa ee lacagayooga isku qoray intii aan bixin inay ummadii ay u ballan qaadeen ee Ilaahay hortiisa uga ballan qaadeen inay si degdeg ah hawsha uga soo baxaan ma doonayna aanu magacyo sheegno laakiin waxaanu qabnaa inay qayb badan weli ay harsan tahay qaybtaasuna aanu doonaynaa inaan maxaan ku dhahdaa intaan aan liiska soo jeedin aan hebel weli waxaad muu keenin waxaanu doonaynaa waanu fahmi karnaa duruufaha dalka jira iyo maxaan ku dhahaa adduunkaba ka taagan waxaanu rabnaa aanu doonaynaa inaanu ku boorino kuna boogaadino annagoo uga mahadnaqayna shicibkii Jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu qurbaha joogo iyo hadduu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland joogaba inuu maxaan ku dhahdaa ballanqaadkaas ummadda u ballan qaaday ka soo kabashada abaaraha maxaan ku dhahdaa ay ka soo qayb galaan waxaanu kale aanu doonaynaa in haddii la yiraahdo dayrta wixii dib loo xooleynayay ee xoolaha maxaan ku dhahdaa la rabay ama beeraha lagu qodayay dhammaantood inay lacagtaas maxaan ku dhahdaa ka soo horeyso oo hawsha laga qayb galo oo wixii aanu xooleynayna xoolahoodii loo iibiyo wixii beeraynu qodaynayna beerahoodii loo iibiyo wixii aynu biyo sameeynayna ama aynu qabanaynayna aynu qaban karno maxaan ku dhahdaa laga hawl galo marka waxaanu doonaynaa in dayrtaas aanay ka maxaan ku dhahdaa ka dambeyn waqtigeedii laga hawl galo marka qurbaha hadalkayga ugu weyn waxa weeye baraarujin degdeg ah inay dadkii ku ballan qaaday iyo kuwa aan ku ballan qaadin in weli jeebka furin inay maanta way og yihiin oo xoolaha dadkeenu sida uga baxeen inay iyaguna wixii ay ku darsanayaan ay ku darsadaan accountskii TV-yada ka socdaan radio Hargeysa ka socdaan in qofkii qof waliba oo maxaan ku dhahdaa ogaadeen in dad badan inaga barakaceen oo maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay ku faafsan yihiin aanay cidina u maqneen ceelna u qodnayn dadka ay sugayaan ay tahay gudida ka soo kabashada abaaraha iyo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maxaan ku dhahdaa
u ballan qaaday waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka diinta iyo awqaafta